xiriirka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxeeya hoggaanka ay bulsho doorato ayaa noqon kara mid u horseeda inay ka mid dhaliyaan howlaha ballaadhan ee horyaala iyadoo aynu horay u soo joognay dib u dhicii iyo dhibaatooyinkii ay Soomaalidu ka dhaxashay khilaafka soo kala dhaxgala madaxda ay doorato iyadoona khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo kala dhaxgali jiray uu ku sii siqayay inuu ka mid noqdo waxyaabaha sida joogtada dalka uga dhaca ee lama dhaafanka haddaba waxaa arrintaasi gabalkeedu dhacay markii Soomaaliya ay dooratay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna soo dooray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed waa kan madaxweyne Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed la wadaagay bishii Juun ee sanadii 2017 waxa uu ka dhigan yahay ra'iisul wasaare Khayre nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana beys u ah nabad iyo nolol kow waa idiin sheegay danta shakhsiga in laga guuro oo loo guuro dan guud danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idiin keeno saan idiin ballan qaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan ra'iisul wasaarahana ballantii waa fulay oo wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dhankiisa sheegay inay meesha ka baxday waqtigii hoggaanka dalku uu ahaa laba garab oo kala fadhiya waxa uu sheegay in haddii aad la kulanto madaxweynaha ay ka dhigan tahay inaad la kulantay ra'iisul wasaaraha waa la soo dhaafay waqtigii ay ahaan jirtay hadda ra'iisul wasaarahan ka tegay aan madaxweynaha soo dhageysto waxaa lagu jiraa Soomaaliya haddii aad ra'iisul wasaaraha aragtay madaxweynaha waa aragtay haddii aad madaxweynaha aragtayna ra'iisul wasaaraha waxaa lagu jiraa Soomaaliya sida Soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka sidii sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay ahaan jirtay xiriirka wada shaqaynta iyo kalsoonida ballaadhan ee ka dhaxaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo shacabka rajo badan gelisay waxaa dhankiisa ka waramaya xildhibaan Mustafa Maxamuud Qodax oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Khayre waxa weeyaan taariikhda marka ilaa Cabdilaahi Yuusuf dawladiisa laga soo bilaabo labada nin ee ugu fiican xagga isfahanka oo runtii mudan in lala shaqeeyo weeyaan xaqiiqatan waa sidaa wixii kale ee ka qaldamaya waa bini'aadan hala sheego laakiin labada nin waxa weeye laba nin oo isfahansan isla jaan qaaday oo Farmaajo wuxuu ku guuleystay inuu ra'iisul wasaare firfircoon ay isna fahmi karaan inuu magacaabo baarlamaankuna waa saxiix waxa kale waliba Farmaajo ku guuleystay oo runtii ay tahay in loo qiro oo gobonimo ah hadiya jeer madaxda Soomaalidu marka ay ilaa wasiirada asaasa weligood dhaqanka wali ahaan jireen waxa la yiraahdaa decentralization iyo shaqada in la qaybiyo ma yaqaanaan qofka shaqadiisa uma daayaane madaxweynuhu intuu wasiir dhiso haddana shaqada halkan ku haysta inta badan dhaqanka Soomaalidu waa iska caynka jananka ninkaah madaxda ka hooseysa ma ixtiraamo shaqadooda uma daayee ilaa taliye ugu doonaa inuu u dhaafo dhaqankaas inta badan lahaan jiray Farmaajo dhaqanka ma laha oo dad badan baa waxay ku canaantaan ma ku dhahdaan ilaa wixii aynu ku barbaaray siyaasadii baa la doonayaa waxaynu ku barbaaray oo 3 sanadood aynu naqaanay kaliya talismadaas aynu naqaanay Farmaajo dad baa imka ku canaanta ra'iisul wasaaraha ayaa shaqadii faraha uga qaaday uu ku saxan yahay siyaasad qaldan maaha hadduu ra'iisul wasaaruhu shaqaynayo in loo daayo shaqada fulinta ee wasiiradiisa inuu isagu dabagalo la xisaabtamo oo madaxweynuhu kaalintii odaynimada dalka qaato arrintaas waa muhiim Farmaajo arrintaas horta qaatay ugu dambeyntii waxa uu baalay isku duubnida madaxda dawladdu inay horseed u noqon doonto kamid dhalinta rajada shacabka Soomaaliyeed bal haddaba dardaarankii doqon baan ogeyn waxa uu danay dantiinu waa wada jirka daryeela midnimaad ku doogsataan deysta oo isku dirkiina diida waa heestii isku duubni iyo kooxdii Heegan dantiinu waa wada jirka daryeela midnimaad ku doogsataan deysta isku dirkiina diida